بسم الله الرحمن الرحيم كلا وعن داوديال برنامج كان waxaan idinkugu soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyay ee duqeynta Israa'iil ay ku hayso wadanka Iran waxaa soo baxaysa faahfaahin dheeraad ah oo ku aadan goobaha la duqeeyay iyo waliba sidoo kale saraakiil hor leh oo la xaqiijiyay geeridooda waxaana ka mid ah taliyihii guud ee ciidamada waxaan kaloo idin soo gudbinaynaa hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei oo ka hadlay duqeyntan Israa'iil ay qaaday iyo jawaabta ay bixin doonaan sidoo kale afayeen u hadlay militariga wadanka Iran ayaa wacad ku maray in Mareykanku uu dareemi doono xanuun isla markaasna qayb uu ka ahaa weeraradan waxaan kaloo idin soo gudbinaynaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa gaashaandhigga oo la sheegay in lagula cararay dhufays dhulka hoostiisa iyadoo xilligan barnaamijka aynu wadnayna warar kala duwan ay ka soo baxayaan dhanka Israa'iil oo ku aadan diyaaradihii shirkadda diyaaradaha ee Israa'iil in loo qaaday wadamo dibadda ah waxa ka mid ah xitaa diyaaradii qaaska ahayd ee Netanyahu waxaan kaloo eegi doonaa goobaha la duqeeyay xarunta nuclearka Iran iyo waliba saldhigyo lagu soo waramayo in la duqeeyay iyadoo duqeyntii saddexaadna imika ay socoto waxaan eegi doonaa xaaladan iyo wararkii ugu dambeeyay iyo saraakiisha Iran laga dilay ilaa hadda inta la xaqiijiyay gudaha Israa'iilna waxaa soo baxay warar kala duwan oo la xiriira in xaalad degdeg ah lagu dhawaaqay isla markaasna Israa'iil waxay sheegaysaa inay filayso maalmo adag inay soo socdaan macluumaadkaasi iyo wararkii ugu dambeeyay ayaan barnaamijkan Maxamed Maxmud Cadde oo macluumaadkan iyo wararkan isha ku haya isla markaasna xaaladda ugu dambaysa la socodsiinaya ayaa qadka ku jira Maxamed bal horta intaanan u imaan wararka kale dhanka Iran ilaa hadda maxaynu war ka haynaa gaar ahaan hogaamiyaha sare ee Iran hogaamiyaha ruuxiga ee wadanka Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay wadankiisa ka gashay dambi aad u weyn wuxuuna daboolka ka qaaday in sharta ay ku tala jirto Israa'iil oo ay ku weerartay xaafado ay degan yihiin ay muujinayso sida ay Israa'iil shar u tahay waxaana waajib ah inay Israa'iil karti u yeelato in ay sugto ciqaabta soo socota insha Allah ayuu yiri waxa ay la kulmi doonaan buu yiri gacanta adag ee ciidanka qalabka sida ee wadanka Iran waxayna noqon doontaa buu yiri jawaabtaasi mid culus qaar ka mid ah taliyayaasha iyo saynistiyaasha ayaa uu yiri waa ay shahiideen oo weerarkaas ay ku dhinteen kuwii bedeli lahaana waxa ay bilaabayaan dhawaan inay waajibaadkooda la wareegaan dambiyada ay Israa'iil gashay ayaa waxa uu afmeerayaa xanuun iyo mustaqbal aad u xun oo Israa'iil ay la kulanto iyo waxa hubaal ah in mustaqbalkeeda uu noqon doono mid afka ka xiran waa garta waan soo laaban doonaa Iran wararkeeda Maxamed kale laakiin xagga Israa'iil waxaa lagu soo waramayaa xaalado adag inay jiraan iyo cabsi badan inay bilaabatay maxaynu ka haynaa wararka ugu dambeeya la xiriira Netanyahu iyo xubnaha golaha wasiirada raadiyaha militariga Israa'iil ayaa ku waramaya ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca Israa'iil Katz in ay weerarada Iran lagu qaadayo ay kala socdaan xarunta dhexe god dhulka hoostiisa oo aad loo adkeeyay janaalka 12aad ee Israa'iil ayaa sheegay go'aanka weerarka lagu qaaday waxa qaatay Netanyahu iyo Katz 3 maalmood ka hor waxaana muuqata in weerarkaasi uu hadda socdo waa gartay Iran aan dib ugu laabano afayeenka militariga hadalka uu sheegay Maxamed bal hadii inooga waran weerarka Israa'iil ku soo qaaday Iran waxa ku taageeray dawladda Mareykankana qiimo weyn ayay ugu fariisanaysaa taageeradaas ay Israa'iil ku weerartay inay Iran gudaheeda weerarto waana inaan waajiba in naga fisho jawaab aad u kulul oo ka imaanaysa ciidamada qalabka sida ee wadanka Iran ayuu yiri afhayeenku waa gartay isla Iran intaan waan u soo laaban doonaa Israa'iil dib aan ugu laabano warbaahinta Iran warbaahinta Israa'iil aan iraahdo waxay ka hadlaysaa saraakiil ka hadlaya Israa'iil waxa ay filan karto maxaa kamid ah waxyaalahaas
warbaahinta rasmiga ah ee dowladda ayaa soo xiganaysa oo sheegaya waxa ay noogu fariisan doontaa qiimahaas inaan bixino diyaar ayaan u nahay, sababtoo ah iiraan ma doonayno inay samaysato bam nuclear ayuu yiri. janaalka 14aad ayaa asna waxa uu soo xiganayaa sarkaal military oo sheegaya iiraan in ay jawaabi doonto haddii dadkeenu ay kala dambeyn iyo adkaysi muujiyaan, waxyeelada waxay noqon doontaa mid aad u yar. waa warka ay iskula talinayaan sida idaacadaha rasmiga laga baahinayo. waayo maxamed, isla Israa'iil inteena ka bixin sarkaal Israa'iiliya ayaa waxa uu ka hadlayaa sidoo kale Israa'iil waxay filanayso arrinkaas sidoo kale bal haddii noo faahfaahi. sarkaalkan waxa uu leeyahay Israa'iil waxaa ku soo wajahan maalmo aad iyo aad u adag Iiraan iyadoo ay ka jawaabayso weerarka aynu ku qaadnay. janaalka 14aad ayaa waxa uu soo xiganayaa nin sarkaala, waxa uu yiri waxaan gaarnay guulihii ugu waaweynaa ee ebed aanan hore loo arag. waxaan dharbaaxyo xoog leh ku dhufanay hogaankii militariga Iiraan iyo hogaankii ciidamada kacaanka Iiraan. waxayna ahayd buu yiri weerarada aan qaadnay kuwo fog oo meelo badan aan u qorsheynay in aan weerarno ilaa iyo maalmaha soo socda. waxaa jiri doona buu yiri ayaamo adag ayaa naga horeeya. Iiraan dhankeedana waxaan ka filaynaa jawaab. waa gartay, waa hagaag. Iiraan goobaha la duqeeyay marka laga tago xarumaha xasaasiga waxaa ka mid ah goobaha rayid ah oo kaabayaasha rayidka. maxaynu ka ognahay goobahaas? telefishinka waddanka Iiraan ayaa ku waramaya in Israa'iil ay bartilmaameed ka dhigatay agagaarka warshadda batroolka lagu sifeeyo Tabriz ee ku taala waqooyiga galbeed ee Iiraan. janaalka 13aad ayaa laga soo xigtay ila ku dhow oo sheegaya in weerarkii afraad oo duqeynta ah ay Israa'iil la beegsatay Tabriz iyo Karmanshah iyo kaabayaal lagu sameeyo gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. wararkaasna waxaad moodaa inay yihiin kuwa isu soo taraya. waa gartay. khasaaraha ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waxaynu ka ognahay, iyo sidoo kale xubnaha lagu dhawaaqay ka mid ah ciidamada iyo saynisyahanada Iiraan laga dilay. maxamed, telefishinka Iiraan ayaa ku waramaya 5 qof oo rayid ah in ay dhinteen, 20 kalena in ay ku dhaawacmeen Nakmak deegaanka la yiraahdo ee bariga Tehraan. natiijadana waxay ku timid duqeynta xagga cirka ee Israa'iil. waxaa dardar galay baa leeyahay dagaalka Israa'iil ee ka dhanka Iiraan, waxaana lagu waramay in lagu dilay saraakiil sarsare oo Iiraaniyiin ah oo uu ku jiro oo ay ku jiraan taliyayaal waaweyn iyo saynistiyaal xagga nuclearka, sida laga soo xiganayo ila ku dhow Iiraan. Major General Hussein Salamani oo ah abaanduulaha ciidamada ilaalada kacaanka ayaa ka mid ah dadka la dilay oo duqeynta lagu dilay kadib markii la beegsaday xarunta dhexe ama taliska ciidamada ilaalada kacaanka. weerarkan ayaa waxa uu noqonayaa weerarkii khaarijin lagu khaarijiyey mas-uuliyiin midkii ugu sarreeyey ee militariga Iiraan lagu qaado muddo sanad ah. intaa waxaa dheer in la dilay ayagana 2 scientiste oo xagga nuclearka ah, Maxamed Mehdi Tehranji iyo Fareyuddin Abbasi oo labadaba ah niman scientistiyaal ah. waxaana lagu waramay in weerarka saaka aroortii ay Israa'iil qaadhay guryaha ay duqeysay inay guryahooda ku jireen. labadan scientist ayaa labadaba waxaa la sheegay inay barnaamijka nuclearka Iiraan ay laf dhabar ka ahaayeen, muddo badanna ka shaqeynayeen sida warbaahinta Iiraan ay sheegtay. warar kale oo soo baxay ayaa tilmaamaya in Major General Ghulam Ali Rashid oo ah taliyaha
khatam al-anbiya khatim al-anbiya oo ah dhisme oo Tehraan ku yaala ayaa asna weerarka naftiisa ku waayey. Duqeyntan ayaa waxaa laga yaabaa inay xiisadda cirka kusii dhejiso gobol awalba xaalkiisa uu aad iyo aad u qasnaa sida ay lafagurayaasha hadalka u dhigayaan. waa gartay maxamed waan falaqayntan u gudbaynaa laakiin sidoo kale war ay hadda soo tuurtay wakaaladda wararka ee Faris waxay xaqiijinaysaa in la xaqiijiyay geerida taliyihii guud ee ciidamada waddanka Iiraan. barnaamijkan ka horreeyay degdeg ahaa waxaan ku sheegnay inagoo soo xiganayna warbaahinta Iiraan qaar ka mid ah in uu nool yahay, laakiin hadda waxaa la xaqiijiyey si rasmi ah Major General Maxamed Bakhari in uu dhintay, isla markaasna duqeymihii ku dhintay. wakaaladda wararka ee Faris ayaa warkaasi soo tuurtay haatan. wararka kale ee degdega soo dhacay waxaa ka mid ah hawada Iiraan sida halkan aad ugu jeedaan daawadayaal gebi ahaanba waxaa laga mamnuucay diyaaradaha. sidoo kale waxaa iyana ku dhawaaqday hawada inay xirtay Ciraaq. calaamadahan aad u jeedaan diyaaradaha waa diyaaradaha hadda xilligan maraya gobolka bariga dhexe. marka laga tago Iiraan iyo Ciraaq inta kale hawada way furan tahay wadamada kale, laakiin way bannaan tahay Iiraan sidaad aragtaan. xaalado colaadeed iyo dheelo colaadeedna way jirtaa. sidoo kale wararka dhanka Israa'iil laga soo gaaraya waxaa ka mid ah boggan la yiraahdo flight radar oo la socda macluumaadka diyaaradaha ayaa waxa uu sheegayaa goor dhaweyto diyaaradda la yiraahdo magaceeda Zion Wing oo ah diyaaradda khaaska ah ee ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu inay ka duushay magaalada Tel Aviv garoonka ku yaala Ben Gurion. waxaana tani ay ku soo aadaysaa iyadoo warbaahinta Israa'iil ay sheegayso shirkadda diyaaradaha ee Israa'iil diyaaradaha ay lahayd in loo qaaday dhanka Khubrus cabsi weyn ay jirto. warkaasna waa wararka hadda ugu dambeeya. dhanka Iiraan sidoo kale war hadda ka soo dhacay wuxuu sheegayaa in sidoo kale dhaawac uu soo gaaray la taliyaha hogaamiyaha sare ee Iiraan Ali Shamkhani oo isna la sheegay in isbitaal la dhigay. xaaladiisa waa laga dayrinayaa sida wararku ay sheegayaan, dhaawaciisana aad buu culus yahay. waaya wararka degdega wixii soo kordha waan u imaan doonaa. maxamed baraha bulshada marka hadda qiimeynay dhanka Iiraan waxyaabaha aadka loo hadalhaya waxaa ka muuqata in la leeyahay Iiraaniyiintu waxay u qaateen dhab warkii ka soo yeeray dhanka Mareykanka ee ku aadanaa in weerar uusan dhacayn inta ka horeysa maalinta Axadda oo wareegii lixaad lagu ballansanaa. sidaas darteedna ay dhacday in hogaamiyaashan ay isdhigtaan. ma taasaa loo sababeyn karaa oo ahayd in wadahadalladaasi ay keeneen in la beegsado, mise sida si guud baa dayac u dhacay, mise waa Iiraan waa la dhex galayoo basaasiin baa dhex gashay? sidee Israa'iil ugu suurtageli kartaa inay beegsato hogaamiyaashan muhiimka ah, taliyihii ciidamada guud, taliyihii ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan iyo xubnahan muhiimka ee saynisyahanada? su-aashaas waa su-aal aad iyo aad u fiican. marka ugu horeysa shacabka na dhegeysanaya Soomaaliyeed waa inay fahmaan sida xukuumadda Iiraan ay u shaqeyso. Iiraan waxaa la yidhahdaa Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan. taliyayaasha waaweyn, madaxda waaweyn iyo cid allaaliya ciddii mas-uuliyad haysa waxa uu la mid yahay sida dadka caadiga ah. waxa uu nool yahay nolol caadi ah. dadka ayuu ku dhex jiraa, dukaamada wax ka gataa, taksiyadu raacaa, jidadka ayuu maraa. sidaas iyadoo ay jirto waxa weeye waxa ay nidaamkan ku sheegaan inay tahay mutawaadicnimo, inay yihiin dad u jajaban diinta. intooda badanna waxaa lagu sheegaa in ay culimo yihiin. weerarkan markay Israa'iil salaada subax aroortii ay ku soo aadinayso macno weyn ayaa ka dambeeya. waxa weeye xog ayay haysataa. ilaa iyo 70,000 oo Iiraaniyiina oo waxaa jira Yuhuud ah. Israa'iil muddo badan ayay basaasiin ku dhex lahayd mujtamaca Iiraan gudihiisa. ma aha oo keliya in ay joogaan jaaliyad Yuhuud ah, waxaa kaloo jooga jaaliyado waxaa kaloo jooga dad Iiraaniyiina oo calmaaniyiina. waxaa kaloo jooga dad cirqiyo kale ah oo la shaqaysta wadamada ajnabiga ah, oo ay ka mid yihiin bolijiska, ay ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin dad badan oo tirsanaya in caburin lagu hayo,
intaa marka laga gudbo tallaabadan ay dowladda Israa'iil ay qaaday dadka khabiirada ee arrimahan la socda waxay leeyihiin waa bilowga dhammaadka Israa'iil tan kale oo ayadan aan meesha ka maqnayn oo Iiraaniyiinta laftirkooda ay xuseen waxa weeye gacanta ku dhex jirta weeraradani waxa weeye oo garabka siisay waa Maraykanka waa inuu fishaa xanuun aad u weyn dhanka dayaacadda waxa weeye Iiraan warka ma maqasho Maraykanka iyo Israa'iil toona waxa jira waxa weeye diyaaradahan weerarka qaaday qaar badan waxa lagu sheegay wararka hordhaca inay yihiin diyaarada aan duuliyaha lahayn oo drones ah su'aasha la isweydiinaya waxay tahay droneskan xaggee ka soo kaceen ma Israa'iil bay toos uga yimaadeen mase waxay ka yimaadeen meel kale diyaaradahan weerarka geystay ee dhibaatada geystay waxay ku sifeeyeen wararka hordhaca inay yihiin drones waxaa diyaaradda noocan oo kale ah lagu dilay madaxii xafiiska siyaasadda ee ururka Xamaas booqashada ku marayay booqashada ku joogay Iiraan markii la caleema saarayay madaxweynaha waddanka Iiraan weerarkan waa la filayay laakiin inuu sida u soo degdegayo cid walba ayaa ogsooneyd wararka la socota 24 saacadood ee la soo dhaafay mas'uuliyiinta ka hadlayay iyo sida hadalka loo dhigayay waxaana muuqata sida ay khabirada qaar hadalku dhigayaan oo ay fogeynayaan inay bilow tahay dagaalka saddexaad ee adduunka ayatollah Ali Khamenei hogaamiyaha ruuxiga Iiraanna sidoo hadalka u dhigay waxa weeye Israa'iil waxa ay daboolka ka qaaday in ay isu dhamayso waxa cawaaqib ay filan doontana waqtiga ayaa sheegaya waa gartay waa yahay dhinaca kale aynu ka eegno saynisyahannadan la beegsaday hadda waxaa la sheegayaa inay ka mid tahay xarunta la weeraray xarunta la yiraahdo Natanz oo ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan sidoo kale waxay leeyahay Tartiz xarunta la yiraahdo ayana nuclearka ayaa la beegsaday wali waxa leeyahay dhaawac weyn baa gaari baa leeyahay xarunta Natanz sida ay leedahay wakaaladda wararka ee Iiraan u faafisa wararka ee IRIB la yiraahdo raggan saynisyahanada Maxamed Iiraan haddii laga dilay dhaawac intee lag bay u tahay in xarumihiina la weeraray nuclearka saynisyahanadiina la beegsaday Israa'iil muddo badan ayay weerar gaadma ah oo khaarijiin ah ku waday saynisyahanada Iiraan laakiin tan waxa ay tahay mid isbedel weyn ku keenaysa sida hadalka loo dhigay gobolka bariga dhexe haddii ay run tahay oo la beegsaday xarumaha nuclearka waxa weeye waxaa dhalanaya cawaaqib ayaa dhalanaya waxaa laga yaabaa inay suntaas dadka ku agdhow ay aafayso tan kale oo iyadana aan meesha ka maqnayn waxa weeye ninka la khaarijiyey ee labada scientist ka mid ah la yiraahdo Faryodin Abbasi waraysi uu bixiyey dhowaan ayuu waxa uu ku sheegay in lagu wargeliyey inay Israa'iil bartilmaameed ka dhiganayso oo ay rabto inay qaarijiso waxa uu ku jawaabay anigu nin waayeel ayaan ahay shaqadeeda waa gutay waa qabsaday dhalinyaradii aan soo saarnay oo aan wax barnay ayaa shaqada wada oo shaqadii la wareegay waxaana cad in dhinaca Iiraan ay mar horeba tileen jiilka labaad ee shaqadan sii wadi kara tan kale oo aydan aan meesha ka maqnayn waxa weeye waxaa jira wadamada reer galbeedka waxay aaminsan yihiin haddii weerar lagu qaado hoggaanka la dilo in wax walba ay kala daadanayaan oo isku dhaxyaacayso waxa weeye marka la fiiriyo sida ay ayaga qabaan laakiin Iiraan dharbaaxyo marka ay u geysatid dharbaaxyooyinkaas adkaysi ayay u leeyihiin marka ay taliyaal magacaabayaana taliyaal kale oo waxaa jira yaryar oo ku daba xiga oo la shaqeynaya oo haddii ay wax dhacaan shaqada la wareegaya Ali Khamenei oo ah hogaamiyaha ruuxigana waa sheegay wax weyn ma aha nimankan waa shahiideen raggii bedel ayaa la wareegaya laakiin cabsida iyo naxdinta hadda dhinaca kale ayay taalaa mana noqon doono sida Israa'iiliyiinta hadalku dhigayaan dagaal
dhowr maalmood socda waxa weeye dagaalkan siduu u bilowday weeye ilaa iyo Israa'iil ay ka soo afjarayso Iran intay ka soo afjarayso Israa'iil su'aasha hadda la isweydiinayaa waxay tahay Mareykanku markuu arko xanuunka gaaraya shacabka Israa'iil sababtoo ah gantaalada iyo waxa la soo ridi doono ma aha wax anaga aan qiyaasi karno waxaan aqoon u leenahay ma aha laakiin khabiirada arrimahan la fagura ayaa waxay leeyihiin haddii 10,000 saacadiiba oo gantaal la soo rido oo 24 saac ay socoto waxa weeye waxa dhacaya waxa weeye dad badan ayaa ku dhimanaya waan aragnaa anaga maalin walba idaacada ku aragnaa labadii sano ee la soo dhaafay ayaan arkaynay in Falastiiniyiinta rayidka ah sida Israa'iil u roynayso markay arkaan dhiigga daadanaya dadka Israa'iiliyiinta ee ku dhimanaya oo guryahooda ku dumayaan sida Falastiiniyiinta loogu dumiyay falcelinta ay sameyn doonaan wadamada Yurub waxa laga yaabaa dagaalkan in uu ballaarto haddii uu dagaalkan ballaartana waxa uu noqonayaa baa leeyahay dagaalka saddexaad ee adduunka waa gartay waxaa hadda hadlaya mas-uuliyiin ka tirsan Israa'iil wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Katz wuxuu leeyahay waxaan filaynaa weerar gantaal ah iyo drones Iran ka yimaada laba mas'uul oo kale oo warbaahinta Israa'iil ay soo xigteen waxay leeyihiin suurtagal waxa ah saacadaha soo socda jawaab inay ka timaado dhanka Iran laakiin intaynu barnaamijka ku jirna war kala soo dhacay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa wuxuu sheegay inuu difaaci doono Israa'iil warkaas maxaa loo fasiran karaa Maxamed Israa'iil inuu difaaci doono haddii uu sheegay hore waxay u cadeynaysaa in uu la ogaa waxa ay sameynayso difaaciisa hadduu difaaci lahaa iyo haddii kaleba Iiraaniyiinta dhinacooda waxay yiraahdeen Mareykanka ayaa lug ku leh xanuun weyn ayaan gaari doona waan arkaynaa laakiin meeshan waxa murugada leh ayaan darrada ay tahay waxa weeye wadamadii carabta ah ee malaayiinta dollar bixiyay in wadamadooda ay duqeyn xoog la ku dhici doonto oo fadeexa ku keena lacagtii iyo kharashkiina waa ka baxday wax laga dhageystana lama arko haddana waxaad moodaa dagaalka inay qayb ka noqonayaan waxaana ayadana sidoo kale ayaan darro ah in dagaal hadda uu gobolka bariga dhexe ka bilowdo xilli ay jirto waxyaabo fara badan oo macaashada caalamka oo dhan ay kor u kacayso oo ay ka mid tahay ascaarta saliidda $100 ayay ku dhowdahay dagaalkan hadda lagu dhawaaqay ee la galayna waxaa la hubaa sida ay khabiirada hadal ku dhigayaan in ay $200 ay gaari karto macnaheedu waxa weeye aniga iyo adigayna saameynaysaa oo aanan dagaalka ku jirin sababtoo ah baabuurkaaga marka aad ka haysato oo goobta stationka baabuurka shidaalka looga shubto aad tagto waxaad arkaysaa shidaalka oo sicirkiisa isbedelayo waxyaabaha daruuriyaadka ee dibadda laga keeno dhanna qaali ayay noqonayaan waxaan ayadana meesha ka maqnayn oo Iiraan laga yaabaa in ay boorka ka jafto oo ay kiciso kooxo ay hore u xakameynaysay oo Ciraaq jooga iyo Xisbullah iyo Xuutiyiinta dagaalka noocan oo kale ana sida khabiirada hadal ku dhigayeen barnaamij gaar ayaan ka sameynay Iiraan ciidankeeda badda siduu dagaalka la filayo oo hadda bilowday marka anaga aan duubaynay haddii labada ciidan isku dhaco haddii ay ahayd hadda dagaalku waa bilowday waxaa muuqata in ay isticmaali doonaan doomo aad u yaryar oo dheereeya oo qaarkood ay wataan gantaalo khatar ah gujisyo miinooyin iyo wata torpedo ama gantaalada ka dhanka ah maraakiibta rabiya sir dagaal hadduu bilowdo waxaa la yidhi dagaal gundaha uu ka dhashaa Mareykanka waxa uu noqon doonaa mid ka mid a dagaalada ugu kulul ebed ayaa kusoo food yeeshay waxaana muuqata ayaamaha soo socda ayaa noo kala cadeynaya wax dhaca waa gartay war kale oo hadda soo dhacay waxaa leeyahay nin ka mid ah injineerada qaabilsanaa nuclearka oo la yiraahdo Ahmed Riza Zulfakhari ayaa isna ka mid ahaa dadkii lagu dilay weerarkii caawa dhacay Iran waxay kaloo leeyahay waxay wasaaradda arrimaha dibadda waxay ka dalbatay Antonio Guterres xogayaha guud ee
qaramada midoobay inuu qaado tilaabo degdeg ah oo la xiriirta weerarka Iran ay ku qaaday xarumaha kala duwan waayahay madaxweynaha Mareykanka oo Fox News ay soo xiganaysa isna wuxuu leeyahay Iran ma ogolaan karno inay haysto hub nuclear ah waa inay timaadaa miiska wadahadalka weli waxaa naga go'an in ay dhacaan wadahadaladii la qorsheeyay maalinta Axadda ah Iran wufuudda ka socota iyo wufuudda Mareykanka ma laga yaabaa Iran inay maxamed wadahadaladaas tagto anaga ma ishaafalateyn karno laakiin xajmiga waxa dhacay marka la fiiriyo mas'uuliyiinta dhinta marka la fiiriyo Mareykanka asaga lugihiisa god ku qotay Iran uma socoto uma badna sida mandiqa ah in ay arrimo shar iyo waxaas ka hadlayso Iran waxay lugta gashatay dagaal ay sharafteeda iyo qadiyadeeda ku difaacayso waxayna u jihaysan tahay sidii ay u howlgali lahayd Mareykanka waxaad moodaa madaxweynihiisa sida uu hadlayo in ay ka fog tahay mandiqa haddii aniga aan gurigaaga soo weeraro oo aan dhibaato weyn gurigaaga ka geysto oo aan kula ballan mas'anaysa waxa weeye waxyaabo far badan waxa jira caqliga ka fog tan kale oo ayadana khabirada militariga ee Mareykanka uu ka mid yahay Douglas McGregor oo buugtiisa aan dhowr goor aan dib u eegis ku sameynay ninkan khabiirka ku ah arrimaha dhaqaalaha la taliyaha muddada dheer u ahaa qaramada midoobay Jeffrey Sachs kulligood waxay qabaan Mareykanka haddii uu dagaal la galo Iran inuu noqon doonin play mataqana walk in the park wax la yiraahdo in uu socod ku marayo meel yaro jardiina dagaal uu noqon doona dagaal xanuun badan oo dhibaato weyn geysta saameynna ku yeesha caalamka annaga oran mayno cidaas adkaan doonto cidaas laga adkaan doona laakiin wuxuu noqon doonaa dagaal la isu adeegsado xirfado iyo aqoon iyo qaab ka duwan qaabkii loo dagaalami jiray barnaamijka aan hadaayay xusay oo mar kale xusayana oo caaw baxay xalay baxayna waxa uu muujinayaa Iran in aynan dagaalamaynin dagaalkan loo yaqaan conventionalka ama dagaal caadi ah oo khidadaha reer galbeedka iyo waxaas isticmaali doonin inay isticmaali doonto dagaalka Xuutiyiinta mid u dhow oo ka sii daran kana saameynay xoog badan waa gabagabada ku jirnaa laakiin aan eego warar degdeg ah soo dhacay waxaa leeyahay kumanyaal kun oo qof oo Israa'iiliin ah ayaa dibadda ku xaniban kadib markii Israa'iil gabi ahaanba ay joojisay dowladnimadii diyaaradaha iyadoo cabsina ay jirto ah Iran inay weerar qaado sidoo kale waxaa leeyahay telefishinkana 12 Israa'iil laga leeyahay wuxuu sheegayaa in la adkeeyay ammaanka saraakiisha Israa'iil ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ku sugan baa la yiri meel walba oo caalamka ka mid ahna waxa la yiri Israa'iiliinta joogta ayaa amnigooda aad loo ilaalinaya waxa isaguna hadlay goor dhaweeto wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil wasiir gaashaandhigga ee Iran Nazir Zadeh wuxuu yiri Israa'iil waxay la kulmi doontaa jiritaankeeda waxa halis gelin doona waxa isaguna hadlay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka ilaalada kacaanka Iran wuxuu leeyahay cashar adag ayaan bari doonaa Netanyahu Iran waxay bari doontaa Netanyahu cashar adag sidaas ayuu leeyahay mas'uulkaasi waayahay maxamed aan ku soo gabagabayno haddii ay noqoto Iran inay Israa'iil kaliya ka agaato duqeynteeda la filmayo dagaalka inuu balaarto laakiin haddii ay weerarto saldhigyada Mareykanka markaas waa dagaal buuxa soo maaha hore ayay mas'uuliyiinta Iran u baran qaadeen in Mareykanka uu ku leeyahay Mareykankana asaga afkiisa ka sheegtay wuxuu yiri Israa'iil ayaan difaacayaa dagaalka ayuu qayb ka yahay tan kale oo ayadana daawadayaasheen inay ogaadaan ay tahay waxa weeye Mareykanka il dhow ayaa muddo dheer lagu hayay dagaalkii Afghanistan Mareykanka iyo wadamada reer Yurub oo dhan ayaa isugu tagay 20 sano ayuu socday wax waa ka keeni waayeen ilaa ay haddeertaan ayaa la isku haystaa Mareykanka gudihiisa sababaha keenay in Mareykanka uu ku jabo dagaalka Afghanistan Xuutiyiinta waan ogeyn dagaalkii maamulkii hore ayaa dagaal bilaabay kana waa dardargeliyay waxa weeye Mareykanka dagaalkaasi guul waa ka keeni waayay Iran oo muddo dheer isdiyaarinaysay oo agabka militariga ay soo saarto isku difaacda yana lahaan diyaarado waaweyn yana lahaan laakiin gantaalada iyo droniska waxay ka mid tahay dalalka caalamka ugu horeeya waxaa laga yaabaa marka dagaalkani inuuna noqon Mareykanku waxay la tahay iyo xulafada saaxiibka la ah waxaana muuqata sida lagu joojiyay dagaalkan inuu adkaanayo ilaa iyo ay meel maraan
maraykanku meel buu ku dhigay iiraan nuclear ma qaadan karto ma samaysan karto iiraan sidii lagula hadli lahaa iyo sida loo qaboojin lahaa ayaa adkaanaysa waxaan muddo dheer ayaa laga baaqsanayay midda kale iiraan haddii ay falcelin yar samayso saraakiishan yaryar iyo saanjirisayaashan laga dilay adduunka lagu fadeexeeyo sharafteeda meel looga dhaco iiraan dowladnimadeeda ayaa khatar gelaysa laakiin hore ayay usii qorshaysteen waxaan maraykanka marka muddo dheer ayuu ka shaqaynayay inuu iiraan yaraysto muddo dheer ayuu handadayay hadda waxa weeye dagaalkii waxaa la joogaa meydaankii ayaa la joogaa waana arkaynaa meeshuu ka shubto daawadayaasha HBN-na waan la socodsiinaynaa waxyaabaha ugu dambeeya mar walba soo kordha xilli kasta iyo waqti kasta waayahay gabagabada ku jirnaa waxaa la sheegayaa in qiimaha saliidda hadda uu kordhay ama shidaalka 10% weerarkaasi markuu dhacay warka Trump iska soo daba dhacaya wuxuu leeyahay mas'uuliyiin badan oo reer Iiraan ah ayaan mar dambe la arki doonin wuxuu kale leeyahay Iiraan waa inay ku soo laabataa miiska wada hadalka haddii Netanyahu uu ka diiday Iiraan ha weerarin sidee Iiraan Trump ugu sheegi karaa jawaab bixinina Maxamed waxay ku tusaysaa sida ay khabirada hadalka u dhigeen Trump iyo dhaqankiisa gabar Trump uu adeer u yahay oo walaalkiisa u dhalay oo cilmi nafsiga baratay ama cilmiga nafshidka ama psychology-ga ayaa waxay ku tilmaantay in Trump uu yahay qof aan la saadaalin karaynin qof waxa uu sheegayo saacadda soo socota aan la ogeyn hooyada Trump dhashay ayaa mar hore ay wiilkeeda sifeynaysa ay tiri wiilkayga wiil la saadaalin karo ma aha waxaan rajaynayaa wiilkayga inuu siyaasi noqon islaantaas mar hore ayay dhimatay laakiin waxaan kuu sheegayaa Trump oo doorashada kusoo galay dagaal ayaan joojinayaa adduunka ayaan nabadaynayaa waxa uu bilaabay dagaal sida lagu joojiyay adkaan doonto waa gartay waayahay hadda ka hor halkan waxaan ka sii daynay toddobaad ka hor weerar Ukraine ay qaaday intay adeegsatay kuteenro saldhigyada Ruushka ay geysay sidaas diyaaradaha daroonka ay ku kaceen dadka Iiraaniyada baraha bulshada waxa la isweydiinayaa maxaa loo maqli waayay diyaaradaha guuxooda haddii aysan ahayn diyaaradahu diyaarado casri ah oo meel dheer intay tageen ama meel ka fog Iiraan ay gantaal ka soo rideen laakiin guryaha rayidka oo la beegsaday oo sidaas oo kale loo beegsaday guriga uusan dubin oo laakiin docda laga galay ma dhici kartaa diyaaradahan daroonka laftigooda inay Iiraan gudaheeda ka soo kaceen Maxamed guriga ilaa ay haddeertaan waxaan hordhac weeye laakiin wararka soo taraya waxa weeye diyaaradahan diyaarado waaweyn maaha diyaarado baalalle ma aha diyaarado drones weeye waa diyaaradii lagu qaarijiyey hogaamiyihii xafiiska siyaasadda Falastiiniyiinta ururka Xamaas wararkan way soo tari doonaan wararkan waa hordhac weeye dagaalka sidiisa markuu bilowdana warar badan ayaa soo baxaya laakiin Israa'iil iyo Mareykanka iyo hadda waxay sheeganayaan iyo xaqiiqada waa ka daba tegi doonaa laakiin hadda sida muuqata Iiraan darbaaxi ayaa gaartay mas'uuliyiin sarsare ayaa la dilay mana aha wax la sahlan karo Iiraanna ma aha mid ay dib u laqi karto weerarkan weerarkii ka horreeyay Iiraan jawaabteedu way ka gaabsatay markay aragtay weerarkii ay Israa'iil soo qaaday inuu aad iyo aad daciif u ahaa haddana sida loo badinayo weerarkani waa weerar gaadma ah oo dadkaas rayidka ah dad daba socday ay ku soo hageen ma aha weerar ay burbur weyn ku geysteen waad aragtaa daarta in geeska laga duleelinayo ma aha kaliya halka daar aad aragtay daaro badan oo waxaa jira baraha bulshada hadda dhexyaacaya wararkan way soo tari doonaan midda kale Israa'iil gantaalada ay qiyaasayso iyo waxa ay qiyaasayso iyo labadii weerar hore Iiraan qaaday iyo waxa hadda soo socda waa kala duwan yihiin waxa hadda soo socda waxa weeye saacadiiba in la soo rido kumanyaal gantaala ah waxa weeye Israa'iil ma xamili karto gantaaladaas waxaa ku jira qaar guuxooda ka dheeraya qaar waxaa ku jira diyaaradaha droniska adduunka ugu khatarsan qaar ka mid ah waxaa iskale Iiraan ayaa iskale oo qaar ay ka koobiyeysa Mareykanka waxaa jira kuwa gaari kara fogaan aad u fog
oo meelo fogfog gaari kara. waxaasoo dhan waa is soo tarayaan. wararkani waa warar hordhac weeye. wararka markay hordhac yihiinna waxa weeye xaqiiqada wax badan ayaa qarsoon. inta hadda la xaqiijiyey ayaan ku koobnaanaynaa oo dhinaca Iiraan laga xaqiijiyey oo ah in mas-uuliyiintaasi iyo sanjilisayaashaas inay dhinteen. weeraradana hadda sida muuqato ma aha weeraro waaweyn oo dhibaato weyn oo guryo waaweyn dumiyey maaha. waxa kaloo qarsoon oo dhanna gadaal ayaa kasoo bixi doonaa. waxaan kusoo gabagabaynaynaa Trump warkiisii oo war kale uu ka soo kordhay. wuxuu leeyahay Maraykanku qayb kama ahayn duqeyntaasi mana ka qayb noqon doono. waxaa kaloo hadda soo dhacay war kaloo isna sheegaya Israa'iil inay filayso boqolaal gantaalaha nooca balastiga in Iiraan ay ku soo weerarto saacadaha soo socda sida uu leeyahay raadiyaha militariga Israa'iil. waayahay Maxamed, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. daawadayaashana way mahadsan yihiin. inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan. waxaase naga xasuusa daawade si aad ula socoto wararkan degdeg ah iyo barnaamijyada iyo macluumaadka aynu soo gudbinayno. haddii aad ka cusub tahay baraheena bulshada amaba horey aadan uga xirnayn ku soo biir si aysan kuu seegin macluumaadkan. aad baad u mahadsan tihiin. mar kale nabadgelyo.